shalay wixii jiray qaybtii xumaydun laga qaatay waxay noqotay in hawshii un la sii wado. waxaa jira guryo ay kireystaan qolyahan waa sirdoon la leeyahay, tiradooda waa la sii badiyey. dad mataqaanaa waxna aan qorin waxna aan akhrin oo lagu yiri un sirdoon baa tahay, oo sirdoonka u haysta markaa dadka bunka iska cabaya ku wadada joogiya ninkuu necab yahay inuu raadsado oo si qabiil u socda. dhagax buur iyo jigjiga ugu badan yihiin dadkaas. guryo uga kireysan magaaladan jigjiga, badda cas 2 guri waa uga kireysan. xaafadahan marsin maadaama mas-uuliyiintii hore ay lahaayeen wayba iska wada qaateen meelahaas oo dhan. inta toddobaadkan qof lala baxay tira ma laha. kula wacna wanaagsan idil ahaantiin badawadayaal ku soo dhawaada waraysi khadka taleefankan kula yeelanay Siraajo Aadan oo wax kaga weydiinay xaalada amni darro oo maalmihii u dambeeyay ka soo cusboonaaday magaalooyinka Jigjiga iyo Dhagax Buur. dhalinyaro fara badan oo loo taxaabay xabsiga iyo guryo kala duwan oo magaalada Jigjiga ay ka sameeyeen hay'adaha sirdoonka iyo sidoo kale laamaha baadhista laguna ciqaabo dhalinyaro kamid ah kuwa dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo aan la marinin wax sharci iyo nidaam ah. dhinaca kalena Siraajo waxaan wax ka weydiinay xaalada amni darro ee magaalada ku sii kordhaysa iyo sidoo kale maandooriyaasha iyo drugska magaalada sida badan ugu soo badan haya iyo qorshaha lagu luminayo shacabka Soomaaliyeed iyo waxyaabaha arrintaasi sababta u ah. Siraajo ku soo dhawow barnaamijkan bal waxaad nooga warantaa xaalada amni ee magaalada Jigjiga iyo sidoo kale wararka dhilada xumbaarsan ee maalmihii u dambeeyay ka soo baxayo ee dhalinyaradan China groupka iyo dhalinyaro kala daroogo loo isticmaalayo iyo sidoo kale dhalinyaro xabsiyo kala duwan lagu aruriyo ka soo jeedo gobolada Dhagax Buur iyo Faafan gaar ahaan magaalada Jigjiga iyo sidoo kale xabsiyo qarsoodi ah oo la sheegay in magaaladaasi ay ka dhex samaysan yihiin. dhinaca kalena lagu ciqaabo dhalinyarada ka afkaar duwan xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa su'aal aad u fiican, waa laba su'aalood oo isdul saaran oo aad u balbalaaran waqtina aan lagaga bogan karaynin in laga jawaabo, waana meesha u dhimanaysaba deegaanku. waa runtaa waxaa jirta amni darra jirta, cabsi fara badan baa jirta, dadkii oo la iska dilayaa jirta, xidhagii waxaasoo dhan oo iska dhib yaraaday baa jira. waxaa sababaya markaa dhowr arrimood baa sababaya. mid waa hanaanka dawliga mid ka socota oo asalba qaabka amniga looga shaqeeyo ayaynan garanayninba. dadkan amniga loo diray iyo kuwa amrayaba iyaga laftooda ayaa abuuraya amni darro. qaabkay dadka ula hadlayaan, qaabkay dadka u baadhayaan, ruuxa xuquuqdiisa inay ilaalinaynin, waxay kalifayaan qof walba inay isku dhacaan. hadal markay yidhaahdaan waa qofkii in xabad lagu dhufto ama la xidho. qaabka ay kula hadlayaan sida kuu baadhayaan iyo dad la tababaray maaha. waxaa jirin markaa chain of command dhibaan jirinba totally isku xidhan oo nidaam dawli ah ayaan kaba jirinba deegaanka. horta xagga amniga ha noqoto, wasaaradaha kale ha noqoto, waa carawaa. ciidanka booliska oo kala duwan aadna u farabatay, tababarna aan la siinin, sharcigana aan si fiican loogu akhriyin, magaaladu lagu sii daayay. booliska oo waxa laga aaminsan yahay ay tahay inay dadka dawladda u cabsi geliyaan, inay dadka adeeg u bixiyaan ma aha, laakiin in dadka lagu cabsi geliyo bacdama mas'uuliyiintu ay u arkaan haddii booliska laga cabsado in dhaliisha iyo waxa laga sheegaya ay yaraanayso. oo asalba meeshan dawladdu waxa u jeceshahay dadka yiraahdaa weliga anigu dawlad ma mucaaradin, wixii yimaadaba waan la shaqeeyaan. dadka bilaadmiga waxna way diidaan waxna way yeelaan. waxay rabaan markaa habka booliska u adeegsanayaan inuu noqdo mid argagixisa oo booliska laga cabsado. qodobka kale waxa weeye waa ciyaalkan la yidhaahdo China groupka ama weerada. waxaa jira baahi iyo shaqo la'aan baahsan oo maalinta ka dambayso kor u sii kacaysa. China groupka bajaajyada way cabanayaan, waa la afduubaa, dhibaato badan baa jirta. marka China groupkii iyo booliskii wax ka qaban lahaana xiriir baa ka dhaxeeya. dhalinyartii kale caadiga ahayd ee guryahooda joogtayna China group baa laga dhigo waa la xidhxidhaa. kuwii China groupka ahaana magaaladay joogaan. waxaa jira markaa jeclahay inaan mawduuc kale ka dhigo. deegaankan waxaa ka socdaa arrin Ingiriisku uu ku sameeyey hadda ka hor Chinaha oo la yidhaahdo mataqaanaa opium war baa la yidhaahdaa oo baashan xashiishada iyo waxyaabahaas oo dhan baa inta bilaash laga dhigay baa la gelin jiray Chinaha. deetana baash dhan oo waxa la arkay gidaarada jiifo oo shaqaynaynin. tiyo kala deegaankeena ka socota xashiishad baa la soo geliya si official loo iibiyaa, jaamacadda agagaarkeeda lagu iibiyaa, qabalayada meel kasta lagu iibiyaa, bajaajya ka shaqeeya, booliska og, xukuumadda og. taas marka waxay keenaysaa waxyaabo fara badan oo sharci darro in la sameeyo oo wax badan oo inaan aqoonin uu soo kordho sida
kufsi wadareed macquul maaha soomaalidu in kufsi wadareedku waxa keeni kara uun dad xuskooduna caadi ahayn. waxyaabaha markaa sii kordhaya waxa sii kordhaya oo kale ilaa weliba intii uu dilkii dhacay marxuumadda allahu naxariista ee Juwayriya, waxa sii kordhaysa cabsigelinta iyo xidhxidhka dadka iyo beegsiga magaalooyinku haba sii kala dardaraadaan. waxaa jira markaa nidaam qolyahan sirdoonka la yidhaahdo oo liyu booliska hoos taga. horta wax sirdoon la yidhaahda ma jiro, waddanku hal sirdoon buu leeyahay oo ka nationalka ah. sirdoonkan deegaanka ee la sheegayo waa wax marxalad loo sameeyey, sharcina ma aha. waaga waxaa loo sameeyey in olafta lagula dagaalamo bacdamaa oon dagaalka inagu isu kafaalad qaadnay oon dhahnay ciidanku ha iska nasto annagaa islaynayna. marka dee ciddii warka kuu keeni lahaydna sirdoonka Ethiopia ma noqonaya nin meelahan adigu aad u dirsato oo geeljiraa buu noqonaya. dad noocaas oo markaa xilliga marxaladu keentay yaa mushahar laga siin jiray iyo waxyaabo xafiiska nabadgelyada. isbedelku markuu dhacay arrintii in la habeeyo ahayd, laakiin maadaama oo shalay wixii jiray qaybtii xumaydun laga qaatay, waxay noqotay in hawshii un la sii wado. waxaa jira guryo ay kiraystaan qolyahan, waa sirdoon la leeyahay, tiradooda waa la sii badiyey. dad mataqaanaa waxna aan qorin waxna aan akhrin oo lagu yiri un sirdoon baa tahay, oo sirdoonka u haysta markaa dadka bunka iska cabiya ku wadada joogiya ninkuu necab yahay inuu raadsado oo si qabiil u socda. dhagax buur iyo jigjiga ugu badan yihiin dadkaas. guryo uga kiraysan magaaladan jigjiga, badda cas 2 guri waa uga kiraysan. xaafadahan marsin maadaama mas-uuliyiintii hore ay lahaayeen wayba iska wada qaateen meelahaas oo dhan. inta toddobaadkan qof lala baxay ee adigana kula soo xiriiray saad ii sheegaysaa, anna ila soo xiriiray tiro ma laha. oo anigu inta badan dee activist ma yihiin siyaasi baan ahaa, laakiin maadaama inay dadkii hadalba dadkiibaa iga dhigaya mataqaanaa inta badan nin activist ah. oo waayo ciddii wax gudbin lahayd xaaladda waddankan uu ku jiro laguma dhiiran karo, adigoo waxba samayn baaba la iska kaatoogan karaa. waxaa jira markaa guryahaasa dadka waxa u dambeeya iminka waxaan ku idhahdaa xaji khaliif cabdi yuusuf. waa nin weyn oo ganacsado ah oo warshad ku leh biyaha faafan. 4 habeen baa lalaa gurigiisii laga la'aa, meel la geeyey lama garanayo, halka un baa la geynaya. waxaa la rabaa markaa dadku inay cabsadaan. waxaa aad culayska loo saaray markaa dhalinyarta dhagax buur iyo jigjiga. waxaa jira haddadan aan kula hadlayo dhalinyar fara badan oo qaarna waa la xidhay, qaarna waa lagu daba jiraa guryahoodii ma seexdaan oon habeenkii guryahooda u hoyan karaynin oo la daydayanayo un. sabab loo daydaynayo ma jiro, damiirkooda un baa lagu raadsanayaa un. hadda dhalinyarta tusaale ahaan dhalinyarta dhagax buur oo kale qaar waa la xidhxidhay. naasir nadiir oo kale wuu xidhan yaho sanad baa lagu xukuntayba, xaafad baa ku xukumatay. system dawliya maaha waxaan kuu sheegayo, waan ka sheekayn doonaa. cabdiraxiin maxamed oo kale isagana xaafad buu u xidhan yahay. waxaa jira markaa rag kale oo guryahooda aan seexano iyagana lagu daba jiro, sida farxaan axmed kooreeyo oo kale, maxamed saxane, ugaaska ummadda soomaaliyeed. sidoo kale jigjiga waxaa jira maxamuud gaawo oo kale gurigiisa ma seexdo, waa la deedeeya. ibraahim xirsi jugux, cabdiwahaab, dhalinyar badan oo noocaas oo kale ana waa la deedeeya un baa le xaafadahoodii boolis un baa dul taagan iyo terror. waxaasoo dhan marka waxa weeyaan in xaqiiqdu hoos u dhacdo. marka dadku inay noqdaan keliyata un in dadka u garaacda dowladda oo boolis iyo kuwo kale ah iyo iyagii oo la dagaalama xaqiiqda. marka nidaamkan hadda xirxirkan faraha badan iyo waxa keenaya waa cabsi kursi jacayl. jacaylka kursiga inagu sii badanaya. mar kasta oo jacaylka kursigu sii batana kasbasho iyo nidaam iyo dadkii in wax loo sheego oo horumar loo sameeyo oo sharci la hirgeliyo looma socde cabsigelinun. waxay aaminsan yihiin nidaamkii Joseph Stalin ninkii madaxweynaha Russia ahaan jiray yaa wuxuu digaagad buu soo qabtay, digaagadiibuu wuxuu ka jarjaray baadasha. way xanuunaysaa markaa dee dhiigga saa uga da'aya. baalashiibuu ka dhameeyey. baalashii markuu ka dhameeyey oy gaajootay yuu haruur soo qaaday uu u tuuraa, kolba xaggiisa in yar ku soo daadiyaa ilaa markii dambe uu dhabtiisa ugu waxeeyey. ya
waa digaagadii uu sidaa u galay. marka mas-uuliyiintiisu wuxuu ku yidhi dadku waa saas oo kale, waa inaad baahiyeysaan waxa keenaya markaa dhinaca kale ee shaqo la'aanta. cid kasta oo ama dhalinyar ha noqoto, haddii dowladda ayna taageersanayn waxaa riyaa shaqana ma helayaan, meel kalena ma helayaan. taageeradan kuu sheegi dowladda maxaa laga taageeri, waa madagaal baa jira, dowladda waa la wada leeyahay, qofna gooni uma laha. laakiin waxa weeyaan bacdamaa damiirkaagu sidaa yahay, markay ku dhadhamiyaan waxaad u muuqanaysaa marka qof fiican, deetana adiga gaaja lagugu dilayaa. maxay kalifaysaa taasi? in China groupku bato, in dilku bato, in la isdhaco bas. marka nidaamka meesha ka jira guud ahaan waxa amniga keenaya iyo amni darrada iyo cabsida waa wax systemka dawliga ah ka socda. systemka dawliga ayaa dadkan fawdada doonaya in laga sii jeedo oo la isdilo, oo booliska dadka qaabka ula dhaqma leh, oo sidaa u gala leh, oo waxay u arkaan in dadka haddii la cabsi geliyo oo booliska ay wax dilaan in cimrigu u dheeraanayo. marka guud ahaan mawduucan waan kasii hadli doonaa, laakiin waxaan jeclahay haddaan su-aashaada ka jawaabay, amni darrada iyo cabsidu way jiraan. dhagax buur iyo jigjigaa ugu sii daran. anigu ma garanayo sababta labada culayska loo saarayo. dhagax buur mawduuc kalan kaga hadli doonaa insha allahu, oo mataqaanaa si qoto dheer baan u geli doonaa hawsheedu. iyadu wax lasoo gebagabayn kara maaha. laakiin hadda bacdamaa oo maamulka ka jira oo isku day yara muujiyey mataqaanaa uu ka hadlay dhalinyarta, hadda maamulkiibaa ka hadlaya. marka maamulku gacanta kuma hayo magaalada, laakiin waan ka hadli doonaa, hadda halka usii dhaafi maayo. kaasina wuxuu ahaa siraajo aadan oo khadka teleefonka ku waraysanay. tan iyo intaan kulmi doona barnaamijkan lamida waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo fi amaan.